iyadoo toddobaadkan gudihiisii guud ahaanba dalka Soomaaliya iyo caalamkaba si weyn looga xusay dhalashada nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa iyana magaalada Bursalax ee ka tirsan gobolka Mudug waxa ka dhacday munaasabad markaasi lagu weyneynayay dhalashada nabigeena suuban 20kii bishan oo ku beegnayd hameen talaada ayaa masjidka Al-Huda ee magaalada Bursalax waxa ka dhacday munaasabad si weyn loo soo qaban qaabiyay taasi oo ay ka soo qayb galeen qaybaha bulshada kala gadisan munaasabadu oo ahayd mid markaasi dhinacyo badan ay ka soo qayb galeen oo ay ka mid tahay bahda saxaafadda ee degmada Bursalax ayaa waxa markii ugu horeysay lagu furay ayadaha Quraanka Kariimka iyo qowlka Eebe waxaana halkaasi ka soo jeediyay oo akhriyay Cabdullaahi Mahdi Cismaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. شيخ محي الدين أحمد يحيى ayaa waxa uu si weyn uga sheekeeyay siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo marxaladihii kala gadisnaa ee ay soo martay. nabiga waxa lagu dhalay sallallahu alayhi wasallam magaalada Makka gaar ahaan waxa lagu dhalay fi shicbi Abi Talib sheekha loo yaqaan sheekha Abi Talib. waxa nabiga nuujisay hooyadii kadib hooyadiisa nuujisay nuujinta ka hor nabiga sallallahu alayhi wasallam marka uu dhashay qiblada ayuu u jeeday. culimadii halkaasi ka sheekaysay siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ahaa Sheekh Mukhtaar Shukri Aadan oo si qodo dheer ugu faahfaahiyay siirada rasuulka iyo waliba waxyaabaha markaasi loo baahan yahay in la sameeyo xilligan oo kale. النبي وحو كبر وحيه صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة وحوها النبي صلى الله عليه وسلم مدان رجل يرى شيئا في نومه لا تحقق بالي النبي مركي وروح على قبل وحيه السود ورؤيا صادقة هل أنت وحيه السود جن رؤيا على قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وقدم بينتنا مناسبة loogu dabaaldegaya lagu weyneynayay dhalashada nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam ee ka dhacday masjidka Al-Huda ee Bursalax 20kii bisha November 2018 ayaa waxa markaasi qasiido nabi amaana ku soo afmeeray Nasruddin Ahmed Yahye oo kamid ahaa culimo awdiinkii markaasi ka qaybgalaysay munaasabadaasi. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبضحي ومحمد عربي. si kastaba ahaatee munaasabada lagu weynaynaya dhalashada nabigeena suuban ayaa waxa ay ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan. ikhyaarta hawada naga daawanaysay guud ahaanba barnaamijkii aynu ku eegaynay munaasabadii ka dhacday masjidka Al-Huda ee degmada Bursalax intaas ayuu nooga dhan yahay. dhanka farsamada iyo kaamirada barnaamijka hagar la'aaneed waa Axmed Sheekh Shaaciro halka tabintuna ay tahay anigoo Cabdirashiid Rashka. intaynu barnaamijkan oo kala ah ku kulmi doono haddii alla idmo dhamaanba waa bahdii barnaamijka idin la socodsiinaysay oo idinku dhaafaysa amaana Allah.